Thousands of Somalis have come out against the brutal killings of Somalis in South Africa. Minnesota Somalis are sending out a clear message to the South African government and to the people who are killing Somalis in South Africa to stop the killing. What do we want? Justice! What do we want? Now! What do we want? Now! What do we want? Justice! What do we want? Now! قفنا أو ماني إنه لا نبلي همانتا وحنقول لنا سومالي لا دباتي أو ودل ودني أو بيح الودني أو داول My name is Mohammed Farah. I am the Executive Director of Kajok. The rally here today is very important because of the many killings in South Africa, the senseless killings. Somalia and Somalis across the world need justice for the Somalis, the innocent citizens in South Africa. Early this morning, prior to this rally, as a matter of fact, all this week we've been trying to get in touch with contacting the embassy, trying to get somebody from the embassy that represents the South African government to be here, as this is very important for the Somali community. And early this morning, we met the General Consulate from the embassy, the South African embassy this morning, and we talked about the many issues that the Somalis are facing in South Africa, especially the many senseless killings. And that meeting came out, a dialogue was started. It's a very good step towards resolution. السلام عليكم magacayga waxa waaye Axmed Xirsi waxaan ka tirsanahay ururka Kajog anigana maanta waan isku soo baxnay hadaan Soomaalinahay in aan ka hadalno gumaadka lagu hayo dadkan ee South Africa oo maalin kasta lagu gowracayo oo lagu dilaayo mindiyada dhagaxa lagu dilaayo waan ka soo horjeednaa arintaas ilaa iyo weekgan oo dhan waxaan ka shaqeynaynay sidii aan wax xal ah uga qaban lahayn arintaas anagoo la xiriirnay safaaradda South Africa ee Mareykanka u joogto kuwa DC ku yaalo ayagana ay soo waceen kuwa Chicago oo ay nooga yimaadeen maaragtay dad xagga waxa anaga aan ka shaqeynayna waxa waaye waan mudaharaadka inaan qaylna waa qasab waaye inaan maaragtay warkana meel dheer u gaaro waa fiican tahay laakiin wixii inay ka soo baxaan wax inay joojiyo in dilka la joojiyo gumaadka la joojiyo Soomaalida dhibaatada lagu hayo businessman-ka oo refugee-ga wadankaas ku nool oo taxiga bixiyo in laga joojiyo waxaan meesha la joogto maxaan ku raahdaa walaasheen xaalif fagare oo wiilka walaashiis ahayd iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed inaan u soo gudbiyo inay dad walaalo ay yihiin isku meel ay ku wada dhimanayaan qabiilna ayna lahayn qabyaaladana ay iska daayaan dadka South Africa joogana waxaan kula talin lahaa ilaahay baa rasaqa bixiye inay wadankaas isaga tagaan waxaan kula dalkoodii ay dib ugu noqdaan because meel aan laga rabin inta ka badan isku muhiim kara sida ay falxumoodana annaga wayna dhabaysta ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa ee joogta South Africa inay meeshaas rasaqa ilaahay baa bixiye ay isaga tagaan ay isaga haajiraan because dalkooda inay isaga noqdaan baa la qaatay dib ay ka soo qaxeen dhibaatada ugu foosho annagana oo hiliya calool xumo iyo ciid bay nagu jireen Soomaaliya isku duubnaada ilaahay idinkiisa barwaaqay bashbash qabyaaladana hadda isku duubnida dalka yagow dulli kaga baxdaan dalka yagow nolol daacad iyo deeq iyo wanaag ku durduurata Soomaali waxa noolaato Soomaali ha israacdo ilaahay idinkiisa For Gel TV.